haddii aad gasho baarkan dib dambe uma soo bixi kartid, haddii kale waad dhimanaysaa waxaana lagugu tooganayaa waddada dhexdeeda. laakiin xitaa haddii aad gudaha baarka sii joogto weli ma badbaadi doontid. filimkeenu wuxuu ku bilaabanayaa ganacsada la yidhaahdo Sergio oo soo galay baar ku yaal Madrid. isla daqiiqadaas nin kale ayaa dibadda u baxay, isla markiina waa la toogtay wuuna dhintay. cabsi iyo jahwareer ayaa bilaabatay. dadkii waddada marayay waxay bilaabeen inay qayliyaan oo midba hortiisa u ordo. ilbiriqsiga gudahood waddadii oo dhan waxay noqotay mid cidlo ah. qof walba oo baarka ku jiray wuu istaagay isagoo hareeraha eegaya, laakiin cidina ma garanayso qofka rasaasta soo riday ama xitaa meesha ay ka timid. gudaha baarka shaqaale la yidhaahdo Siyator ayaa si degdeg ah isku dayay inuu waco booliiska, laakiin wax signal ah ma jiro. daqiiqado yar kadib nin kale ayaa si degdeg ah dibadda ugu baxay si uu u eego meydka, laakiin isla markii uu gaaray sidoo kale isagana waa la toogtay. hadda qof kasta oo gudaha baarka jooga aad ayuu u argagaxsan yahay. waxay rabaan inay caawimaad wacaan, laakiin taleefanadooda dhammaan ma shaqaynayaan. hadda signal ma jiro, waddo baxsasho ma jirto. yaab ayaa u daarmay, tolow maxay samayn doonaan? dhammaantood mala toogan doonaa. dhammaadka ayaan ku ogaanaynaa ee si daawo muuqaalka. markaas gabar la yidhaahdo Elena ayaa dhahday, noo shida telefishinka bal aan aragno waxa bannaanka ka socda. waxay shideen telefishinka, laakiin waxaa la yaab leh ma jirto hal warbaahin oo ka waramaysa labadii dil ee hadda ka dhacay bartamaha Madrid. tani waxay u muuqataa mid aad u shaki gelinaysa dadka baarka ku jira iyo annagaba. shakigu wuxuu ka sii daray marka ay dibadda eegeen oo ay arkeen in labadii meyd meesha laga qaaday, xitaa dhiiggii dhulka yaalayna la nadiifiyey. qof kasta oo gudaha joogay hadda wuu yaaban yahay, wax fikrad ah kama haystaan waxa dhacaya. markaas Shatter ayaa dhahay, waxaa laga yaabaa in qof diidan inaan ka baxno baarkan uu waxaan samaynayo. Sergio ayaa isna dhahay, ma laga yaabaa in midkeen uu yahay dilaa ama argagxiso wata walxaha qarxa. waxaa laga yaabaa in boolisku diyaariyeen howlgalkan oo dhan si ay u qabtaan qofkaas. markii ay tan maqleen, nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Nacho ayaa si tartiib ah boorsadiisa dhinac ugu riixaya lugtiisa isagoo isku dayaya inuu qariyo, laakiin Sergio ayaa arkay tan oo isla markiiba qof walba u sheegay. kooxdu waxay bilaabeen inay baaraan boorsada Nacho, waxayna gudaha ka heleen dhar iyo hard drive. Nacho ayaa dhahaya, waxaan u shaqeeyaa shirkad warbaahineed. hard drive-kan waxaa ku jira faylasha shaqadayda oo keliya, wax khatar ahna kuma jiraan. si kastaba ha ahaatee waxaas lagama yeelin. si ay u caddayso inuu dembi la'aan yahay, Elena ayaa jejebisay hard drive-ka iyadoo ku leh qof walba hadda ma wada qanacsan tihiin. markaas Nacho ayaa farta ku fiiqaya boorso yar oo saaran miiska, wuxuuna leeyahay, midaasna hubiya waxaa iska leh Sergio. Cambaro ayaa soo qabatay, laakiin Sergio ayaa isku dayaya inuu joojiyo. isla markaas nin la yidhaahdo Israa'iil ayaa ka dafaya Cambaro boorsada kadibna furaya. gudaha waxay ka heleen rajastiinada dumarka oo keliya. markaan waxaan ogaanaynaa in Sergio uu yahay ganacsada iibiya dharka haweenka. isla waqtigaas waxay maqleen cod ka imaanaya musqusha. albaabka gudaha ayuu ka xirnaa. waxay bilaabeen inay u yeeraan qofka gudaha ku jira, laakiin wax u jawaabaya ma lahan. sidaas darteed waxay jebiyeen albaabka, waxayna gudaha ka heleen nin jiifa oo u dhaqmaya si la yaab leh. waa isla ninkii hore ugu soo galay baarka isagoo qufacaya. waxa kale oo gacantiisa ku jira irbad. Elena ayaana ka qaadatay irbadda. isla markaas waxay dibadda ka arkeen gaari ku soo wajahan. way nafiseen iyagoo u malaynaya in qof u yimid inuu badbaadiyo, laakiin taa beddelkeeda rag maaskaro xiran ayaa ka soo degaya gaariga, waxayna iskor saareen dhowr taayir albaabka hore ee baarka, dab ayayna qabadsiinayaan. kadibna way baxeen. dadka gudaha ku jira way qaylinayaan iyagoo caawimaad dalbanaya, laakiin ragga wejiyada duuban xitaa dib uma soo jeesanayaan. daqiiqada yar kadib wararka ayaa sheegaya in dab weyn ka kacay aagga ku hareeraysan baarka, isla markaana sababo amni awgood aagga oo dhan la xiray. hadda qofna ma geli karo mana ka soo bixi karo ilaa amar dambe. markay tan maqleen, dadka gudaha ku jira waxay u arkeen waxyaab leh sababtoo ah wararka telefishinka waa been. dabka ma jirin aagga. muuqaalka la soo bandhigayay telefishinka wuxuu dhab ahaantii ahaa taayiradii ay dabka qabadsiiyeen ragga wejiyada duubnaa. qof kasta oo gudaha baarka jooga wuu wareersan yahay. markaas si lama filaan ah ninkii musqusha ku jiray ayaa soo baxay. jidhkiisa oo dhan wuu bararay, indhihiisuna waxay noqdeen kuwa cabsi leh. ilbiriqsiga gudahood ninku wuxuu ku dhacay dhulka. qof walba wuxuu u orday inuu caawiyo, laakiin cod hoose ayuu ku dhahayaa, ha i taabanina. kadibna isla goobta ayuu ku dhintay. Nacho ayaa qaatay taleefanka ninka oo hubiyey. ninku wuxuu ahaa sarkaal ciidan. taleefankiisa waxay ka heleen sawirro badan oo muujinaya dad xirnaa qalabka ka hortaga oo ka shaqaynaya gobol Afrikaan ah oo uu ka dilaacay fayras. markay tan arkeen waxay garwaaqsadeen in dowladdu karantiil ku soo rogtay aagga. xaqiiq ahaan sarkaalka ciidanka waxaa ku dhacay fayras halis ah intii uu shaqada ku jiray. dowladda ayaa daba socotay si ay uga hortagto faafitaanka fayraska. inta lagu guda jiray arrintan wuxuu soo galay baarka, taas oo macnaheedu yahay in dadka gudaha jooga laga yaabo inay fayraska qaadeen. si looga hortago inuu fayraska ku faafo magaalada, dowladdu waxay dejisay qorshe lagu dilayo qof kasta oo gudaha baarka jooga si fayraska loo dabargooyo. Cambaro ayaa markaas xasuusatay in sarkaalka ciidanka uu dhahay ha i taabanina. waxayna ka shakisan tahay in Nacho, Elena, Israa'iil iyo Tarani ay sidoo kale qaadeen fayraska sababtoo ah Nacho wuxuu taabtay taleefanka sarkaalka halka kuwa kalena ay taabteen jirka sarkaalka. Sergio iyo Andresna waxay ku raaceen Cambaro. intaas kadib Andres wuxuu soo baxsaday bastoolad, wuxuuna shantooda ku qasbay inay qaadaan meydka sarkaalka oo ay geliyaan dhanka hoose ee dhismaha. iyagoo aan haysan doorasho kale way ogolaadeen, waxayna u dhaadhaceen dhanka hoose. Cambaro, Sergio iyo Andres waxay sii joogeen dusha sare. muddo yar kadib Tarani waxay bilowday inay dareento neef qabatin gudaha qaybta hoose. waxay ka baryaysaa in albaabka ay ka furaan, laakiin cidna ma dhegaysan. iyadoo quus ah waxay isku dayaysaa inay iyadu furto, laakiin way simbiriirxatay oo waxay ku dul dhacday galaasyo isdulsaaran kuwaas oo jajabay. isla waqtigaas waxay arkeen dareeraha ka imaanaya dhalooyinka jabay oo god ku sii qulqulaya. markay ka qaadeen kartoon ku daboolnaa, waxay arkeen dalool u furan marinka bulaacadaha. waxay garwaaqsadeen inay ka bixi karaan iyagoo maraya bulaacada. Israa'iil ayaana iska siibay dharka, wuxuuna saliid mariyey jirkiisa si uu ugu dhex siibto daloolka yar. wuxuu si adag isku dayay inuu ka gudbo daloolka, laakiin aad ayuu cidhiidhi u yahay. inkastoo uu dadaal badan sameeyey, uma suurtagelin inuu dhex maro. si lama filaan ah waxay maqleen rasaas ka dhacaysa qaybta kore. iyagoo aad u argagaxsan ayay si tartiib ah u fariisteen iyagoo aan hubin waxa dhacaya. daqiiqado kadib waxay arkeen holac ka imaanaya dusha sare. markaas ayay garwaaqsadeen in la dilay Cambaro,
Sergio iyo Andres islamarkaana dab la qabadsiiyey baarka. Saacado badan kadib, shantooda ayaa si taxadar leh uga soo baxay qaybta hoose. Dabku wuxuu ku dhawaaday inuu gebi ahaanba burburiyo baarka. Nacho wuxuu helay bastoolad halkaas taal si qarsoodi ah ayuuna u qaatay isagoo aan cidna u sheegin. Islamarkaas waxay arkeen dad dibadda jooga oo xiraya aaga baarka. Waxay go'aansadeen inay aamusnaan ku sii jiraan iyagoo og in haddii la ogaado inay weli nool yihiin iyagana la dili doono. Si lama filaan ah waxay maqleen taleefan gariiraya. Waa taleefankii sarkaalka ciidanka. Elena ayaa soo qaaday waxayna bilaabaysaa inay akhriso fariimaha. Hal fariin ayaa odhanaysa xaaladaadu ma isbeddeshay kadib markaad qaadatay talaalka. Jawaabta sarkaalka waxay leedahay wax weyn iskama kay beddelin. Waxaan ku dhumanayaa musqusha baarka. Elena waxay sii gudagashay wada sheekaysiga waxayna heshay fariin kale oo ka timid sarkaalka oo leh weli 4 ayaan hayaa. Markay tan akhriyeen waxay garwaaqsadeen in talaalka uu watay uu ahaa dawada ka hortaga fayraska. Waxay dareemeen rajo laakiin shaki ayaa weli jira. Haddii talaalku shaqaynayay sidee ayuu sarkaalka u dhintay? Isla markaas taleefankii sarkaalka ciidanka ayaa la soo wacay. Si kastaba ha ahaatee ka hor inta aan la qabanin taleefanka bateri la'aan ayuu u damay. Elena waxay xasuusatay fariintii uu sarkaalka ku sheegay weli 4 ayaan hayaa. Waxay fahantay inuu ka hadlayay 4 talaal oo daawo ah oo haray. Waxay si degdeg ah ugu ordeen qaybta hoose si ay u baaraan meydka sarkaalka laakiin wax talaal ah kama helin halkaas. Kadib waxay u dhaqaaqeen dhanka musqusha halkaas oo ay ku arkeen Israa'iil oo fadhiya isagoo gacanta ku haya 4 dhalo oo talaal ah. Israa'iil wuxuu dhahay waxaan haynaa kaliya 4 talaal laakiin annagu waxaan nahay 5 qof. Midkeen waa inuu naftiisa u huraa saaxiibadiis. Elena waxay soo jeedisay in 4tooda si qiyaas ah loo qaybsado. Laakiin Nacho ayaa dhahay halkii irbad waxaa loogu talagalay 1 qof marka qaybsi ma jireen nasiib aan ku kala baxno. Qofkii nasiibku ka hiiliyana ha baxo. Ka hor inta uusan qofna wax samayn Israa'iil wuxuu isku duray mid ka mid ah talaalada. Markay tan arkeen Nacho ayaa weeraray. Dagaal xooggan ayaa ka dhex qarxay labadooda laakiin Israa'iil ayaa ka awood badiyey Nacho wuxuuna xitaa ka qaatay bastooladiisii. Intii ay hardamayeen mid ka mid ah talaalada ayaa ka siibtay gacanta Israa'iil oo ku dhacay godka hoose. Tareni ayaa si degdeg ah hoos ugu oroday si ay u soo qaadato. Nasiib darro dhaladii talaalka waxay ku sii dhacday godka bulaacada. Hadda dhammaantood waxay isweydiinayaan sida loo soo saari karo talaalka. Elena maadaama ay tahay tan ugu qaliiran waxaa loo doortay inay soo qabato talaalka. Marka hore way ka labalabaynaysaa laakiin maadaama aysan jirin doorasho kale way ogolaatay. Waxay jirkeeda mariyeen saliid waxayna ku riixeen daloolka godka. Kadib halgan dheer ugu dambayn waxay gashay bulaacada. Daqiiqado kadib Elena waxay heshay talaalka waxayna ka soo baxday biyaha. Nacho wuxuu hoos u tuuray silig wuxuuna ku amraa inay ku xirto talaalka si ay kor ugu soo jiidaan laakiin Elena way diiday. Waxayna tiri haddii aad rabtaan talaalka soo gala godka idinkoo dhan. Markay tan maqleen waxay jebiyeen hareeraha daloolka godka si ay u ballaariyaan daloolka. Dhanka kale Elena waxay raadinaysaa waddo ay ku baxsato waxayna si qarsoodi ah meel ugu qarsatay talaalka. Kadib waxay aragtay koox boolis ah oo dibadda jooga. Waxay qaadi rabaan meydadkii lagu dilay baarka. Ugu dambayn 4 haray waxay ku guulaysteen inay soo galaan bulaacada. Mar kale dagaal ayaa ka dhex qarxay Nacho iyo Israa'iil. Markan Nacho ayaa adkaaday wuxuu qabsaday bastoolada wuxuuna Israa'iil ku toogtay biyaha hoostooda. Markay tan arkeen kuwa kale waxay ka baqeen Nacho. Nacho wuxuu markaas bastoolada ku qabtay Siyator isagoo u hanjabaya Elena. Wuxuu leeyahay haddii aad soo bixin weyso talaalka waan dilayaa ninkan. Elena waxay markaas u kaxaysay meesha ay ku qarisay talaalka. Iyada iyo Nacho ayaa horeeya halka Shatur iyo Tarani ay dambeeyaan. Si lama filaan ah Tarani waxay isku dayday inay Shatur biyaha ku rido kuna disho si 3 haray ay si siman ugu qaataan talaalka. Laakiin Nacho ayaa joojiyey. Markaas Tarani waxay tiri aniga idila si aad ugu qaybsataan talaalada si siman. Nacho qoriga ayuu ku fiiqay iyada laakiin wuu ka labalabeeyaa. Si kastaba ha ahaatee ma awoodo inuu toogto. Markay tan aragtay Tarani waxay ka qaadatay qoriga waxay socotay masaafo gaaban kadibna way istoogatay. 3 soo haray waxay soo qaateen talaalada waxayna u qaateen min hal. Iyagoo ku dhow inay isku duraan Israa'iil oo weli nool ayaa gadaal uga soo weeraray ulbir ah isagoo dilay Siyator. Markay tan arkeen Nacho iyo Elena waxay bilaabeen inay ordaan. Israa'iil ayaa dabagalay. Markay wax yar sii socdeen Nacho iyo Elena waxay arkeen jaranjaro kor u baxaysa. Laakiin iyagoo sii fuulaya Elena waxaa ka fakaday talaalkeedii. Balse Israa'iil ayaa daba socda ma awoodo inay dib ugu noqoto si ay u soo qaadato. Nacho markuu arkay arrintan wuxuu siinayaa talaalkiisa Elena wuxuuna leeyahay wax walba way hagaagi doonaan. Isla waqtigaas Israa'iil ayaa qabsaday Nacho. Isaguna wuxuu sii daayay jaranjarada labadooduna waxay iskula dhacayaan biyaha hoose ee bulaacada wayna dhimanayaan isla markiiba. Elena aad ayay uga murugoonaysaa geerida Nacho balse waxay rabtaa inay noolaato waxayna isku durtay talaalka. Iyadoo la tacaalaysa xaaladda waxay ku guulaysatay inay furto daboolka kore ee bulaacada waxayna ka soo baxday waddada. Dhanka kale agagaarka baarka weli wuu xiran yahay. Waddooyinka Madridna waxaa buux dhaafiyey dad qof walbana wuxuu ku mashquulsan yahay adduunkiisa gaarka. Haweenay dareentay rafaadka Elena ayaa garbaheeda ku daboosha jaakad. Iyadoo weli ay ku jirto naxdintii dhacdooyinka maalintaas Elena dadka ayay ku milantay. Haddii aad ka heshay fiidiyowga waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe isoo dhahdo fiidiyowgana leeg ii saarto si uu meel dheer iigu gaaro mahadsanid.